wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane aadan barre ducaale ayaa mar kale xaqiijiyay sida dawladda uga go'an tahay in dhammaan shacabka Kenyaanka ay si siman u helaan adeegyada caafimaad iyadoo loo marayo dib u haweynta lagu sameeyay caymiska caafimaadka qaran ee Universal Health Coverage taasoo ka kooban 4 tiiro waaweyn. kow in si sinaan ah loo qeybiyo shaqaalaha caafimaadka ee xirfadda leh guud ahaan dalka idil. laba xaqiijinta helitaanka agabka caafimaad iyadoo isbedel lagu hagaajinayo hay'adda dawladda u qaabilsan daawooyinka caafimaadka ee KEMSA si loo gaaro 90% in la buuxiyo baahida dalabaadka daawooyinka cisbitaalada. saddex hirgelinta hannaan dhameystiran oo digital health superhighway loo yaqaano. afarna in dib u habeyn lagu sameeyo qorshaha maalgelinta caafimaadka iyadoo loo adeegsanayo caymiska caafimaadka bulshada ee SHA. wasiirka caafimaadka aadan barre ducaale waxa uu ka hadlayay maalinkii labaad ee shirweynaha sagaalaad ee hoos u daadejinta awoodaha dawladda ee ismaamulada ee loo yaqaano Devolution Conference oo halkudhigiisu yahaa xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda bulshada. wasiir ducaale waxa uu sheegay in isbedeladan ay hore u soo saareen natiijooyin muuqda oo ay ka mid yihiin dhimashada hooyada iyo dhalaanka, balaarinta qaybaha ICU-da iyo HDU-da, horumarinta heerka talaalka iyo kor u qaadista adeegyada cudurrada kansarka, kaliyaha iyo adeegyada caafimaad ee gaarka ah. Ladies and gentlemen, devolution has been a game changer in aligning health priorities with the local realities. Counties are best placed to implement innovations that meet the specific needs of their population. The Ministry of Health continues to work closely with the county governments in the rollout of digital health infrastructure at all levels. We are working with you to build capacity of health workers and ICT officers. We are working with you to strengthen data governance, privacy and cyber security, and we want to make sure, colleagues and partners, that equity is not an outcome, it is a deliberate choice. Inclusion and justice in healthcare must be embedded in our system design. We want to ensure that our platforms are accessible to persons with disability. Our platforms are available in local languages. Our platforms are gender responsive. And our platforms are affordable to all. wuxuu ballan qaaday inuu garab istaagi doono dhammaan saamilayda caafimaadka si loo xaqiijiyo in la gaaro hadafka caafimaadka. No Kenyan should be left behind in the digital health revolution, regardless of their location, their income, and their identity. Kenya digital health transformation is here and is real.